إيم الله سبحانه وتعالى با ugu horeyn mahad oo dhan ay u sugnaatay anigoo ah musharax golo deegaan u tartamaya golaha deegaanka degmada Sheekh magacayguna yahay Cabdirasaaq Cabdilaahi Guuleed kana sharaxan xisbiga wadani maanta waxaan jeclahay inaan halkan laba kelmadood kula wadaago bulshada degmada Sheekh iyo guud ahaan Somaliland marka koobaad Ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa ta'ala inagu gaarsiiyay dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan si nabad ah caafimaad ah iyo xilli barwaaqeed oo Ilaahay raxmaadkiisa ay noo horeen mar labaadka waxaan jeclahay inaan guud ahaan la wadaago bulshada reer Somaliland gaar ahaan bulshooyinka degmada Sheekh si gaar ah taageerayaashaydii muddada dheer ee garab taagnaa ina muujiyay hiilka iyo garab istaaga weyn inaan la wadaago qodobo aan u arkay inay ku jirto danta iyo maslaxadda degmadu isla markaana aan u arkay inay tahay badbaado nafeed iyo mid bulsho intaba waxaan jeclahay inaan hortii ugu horeyn aan u mahad celiyo bulshadii inta muddada dheer barbar taagnayd ee gobol kasta iyo degmo kasta iga yimid waxay ahayd bartamihii sanadkii 2020 markii aan shaaciyay kuna dhawaaqay inaan ahay musharax u taagan jagada golaha deegaanka degmada Sheekh iyadoo ay ka dhalatay qabyo iiga muuqatay degmada dhanka horumarka iyo inay dhalinyaradu ku yeelato door muhiim ah hogaaminta iyo talada degmada si loo helo horumar in degmadu la jaan qaado dhigeeda degmooyinka kale ee maanta laga yaabo iyagoo baaxad ahaan dhaqaale ahaan iyo dhismo ahaanba ay ka kooban tahay ka weyn tahay deegaano badan oo ay ka kooban degmada Sheekh dhaqaale ahaan dhismo ahaan iyo bulsho ahaanba inay ka horumarsan yihiin taasina ay sababtay oo aan u arkay inay jirto hagarsho fara badan oo dhanka maamulka ah waxa ii muuqday inay hagarsho baahsani ka jirto waxa ii muuqday in isbedel la abuuraa ay keeni karto in maanta bulshada loo dooro xubno dad dhalinyaro ah oo rag iyo haweenba iskugu jira isla markaasna awoodi kara inay ka midoobaan aragtida baahida ee maanta jirta si loo gaaro dhabbada horumarka ee degmada waxa Ilaahay mahadiis ah in dhalinyaro badan oo aqoon-yahan ah isla markaana aan hubo inay wax badan ku soo kordhin karaan hanaanka isbedel ee degmadu ay maanta u sharaxan yihiin degmada taasina ay dabar ku noqotay jabisay dabarkii ahaa inay bulshadu ay hogaamiyaan dad aan aqoon u lahayn isla markaasna ay ahaan iyo aqoon ahaanba aan ku munaasibahayn inay guud ahaan dalka Somaliland oo dhan ka tartamayaan dhalinyaro u badan da'aha sodomeeyada isla markaana aan hubo inay caqli fiyow iyo cilmi fiyow intaba la iman karaan horumarna ay gaarsiin karaan meelaha ay u sharaxayeen waxaana Ilaahay uga rajaynayaa inay ku guuleystaan hankooda musharaxnimo haddaba si loo gaaro yoolkaas isla markaana degmadu u hesho nabsi bixii hore waxa ii muuqda in si wada jir ah bulshadu ay maanta ugu ciil baxdo codkeeda iyagoo isla markaana waxaan ku boorinayaa inay doortaan ciddii ay u arkaan inay wax ku soo biirin karto hogaaminta degmada waxa ii muuqda in qof kasta xil iska saaro cidda uu codkiisa siinayo ogaadana inaanu isbedel uga horeyn codkiisa haddaba markii aan qiimeeyay xaaladda degmada markii aan u kuurgalay tirada codeeyaasha ee deegaanada iyo degmadaba yaala markaan eegay duruufaha maanta taagan iyo tirada musharaxiinta oo ku loolamaya golayaasha deegaanka degmada Sheekh golaha deegaanka degmada Sheekh oo aad u tiro badan iyo isla markaana codka lagu soo bulshadu ee deegaanada yaala oo ka kooban inta maanta tartamaysa markaan la tashaday naftayda iyo taageerayaashayda intii aan gaadhay markaan xog ururin dheer ka sameeyay tirada codbixinta gaarka ah ee deegaanada aan u tartamayay markaan eegay tirada musharaxiinta aan isku deegaanka iyo haybta nahay iyo nambarka codeyneed oo aan lagu gaari karin guul la taaban karo waxaan go'aansaday anigoo oo eegaya talada iyo turaalaha degmada anigoo eegaya masiirkayga berri inaan ka tanaasulo gebi ahaanba hankaygii musharaxnimo laga bilaabo taariikhda maanta oo ah 9kii bishii 5aad 2021 sababaha aan kor ku soo xusay awoodeed ama daraadeed isla markaana waxaan tartankaygii maanta ku bedeshay turaalaha timaadada berri iyo turaalaha qoyskayga sidoo abwaankii weynaa Allah u naxariisay
maxamed dhamac gaariya uu sheegay gabaygiisii gurmad ku jirtay ee ahayd adoo wax ka gows qabsaday marbaa gafka loo liqaa inaan danta guud murkacan. waxaan si gaar ah ugu dambayn u mahad celinayaa taageerayaashaydii muddada i garab taagnaa. si gaar waxaan ugu mahad celinayaa kuwii meel dheer iiga soo beddeshay kaararkooda codbixineed si ay iigu hiiliyaan. waxaana leeyahay saaxiibayaal, waxaad hiil u ahaydeen isbeddel degmada ku yimaada. waxaad u hiilinayseen inay degmadu maanta ka fiicnaato degmada Brito. waxay insha Allah codkiina iyo codkayga oo aan ku daray waxaynu ku midayn doonaa isugula geyn doonaa dhalinyarada hanka musharaxnimo leh ee weli sharaxan isla markaana aqoon-yahanka ah si ay degmadu u gaarsiiyaan horumarka aynu in badan ku tanaadaynay ogana rumeeyaan rajada degmadeenna. waxaynu ku garab istaagi doonaa dadka u aragnay inay yihiin hormuud ka noqon karaan. anigu maanta waxaan go'aansaday oo isla markaana aan u arkay inay nas tahay qof ahaaneed, inay nas u tahay degmada oo si aan codka bulshada iyo dhalinyarada loo lumin, inaan maanta u tanaasulo dhegayga dhalinyarada oo aan ahayn hayb oo aan ahayn qoys ee u tartamaya degmada si loo gaadho degmo horumarta oo si wada jira loo gaadhsiiyo. ilaahay iyagana waxaan oga baryayaa inay ku guulaystaan hankooda musharaxnimo una hawl yareeyo geedigaa dheer iyo hayaankaa dheer ee muddada kooban u harsan iyo samirkaa dheer ay inta badan isku soo jireen inay kusii samraan baan rajaynayaa. waxaan leeyahay saaxiibayaal, maantayto anigu waxaan u tanaasulay danta degmada. idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad insha allahu marka inta soo baxda kole lasoo wada bixi maayo inta soo baxda inay degmada gaadhsiiso dhabbada horumarineed insha allahu. anna waxaan ka mid noqon doonaa shacabka codeeya, waxaanaan u codayn doonaa ciddii aan u aragno inay degmada gaadhsiin karto horumar. runtii saan war-saxaafadeedka ku sheegayba waxaan kambayn ama olole kusoo jiray dhammaadkii sanadkii tegey ilaa iyo imika. muddadaas dheerna waxaa ujeeddada u weynaan meesha u yimid marka hore waxay ahayd in horta dhalinyaradu ay door ku yeelato, dhalinyarada aqoon-yahanka door la siiyo si dabarkii odaynimada odayaasha ee degmada soo sharaxi jiray ay meesha uga baxdo. talabaadna waxay ahayd bal inay degmada halkan ay maanta taagan tahay horumar laga gaadhsiin karo. horta marka hore fikirkayga wuu guulaystay, waxaana yimi madashii dhalinyaro fara badan oo hanka kadib anu markaan shaaciyey kadib diila soo qaatay iyo dhalinyaro kale fara badan oo iga horreysayba. waxaan aaminsanahay anigu fikraddii aan aaminsanaa inay dhalinyaro badan oo xambaarsan ay jirto. saas darteed anigu maanta waxaan u tanaasulay laba qodobuun. qodob horti waa inaan doorkii dhalinyaradu meesha ka bixin, maadaama dadku hadday isku bataan dhalinyaraduna ay isku madashii ay ku wada tartamaan waxaa lumaya cod fara badan. waxaa tartamaya musharaxiin badan oo ku dhow 20 haddaan kaba badnayn oo xisbiyada kala duwan ka tartamaya. marka waxay sababi kartaa codkaasi inuu cod badan lumo. saas darteed anigoo aan ka webinayn taageere aan anigu haysto, haddana waxaan turaale iiga muuqday inaan dhalinyarada ku biiriyo cod iyo cudud wixii aan awoodayo. talabaad waxa weeye qoyska ahaaneed waad ogtahay qabiil baa dadka doorta badan, deegaana laga doortaa. deegaanada aan ka sharaxnaa waxa iska soo daba dhacay musharaxiin fara badan iyaguna han leh. musharaxiintaasi siyaabo fara badan bay isu soo sharaxeen oo ay meesha madasha u yimaadeen waana iga wada dambeeyeen. waxaas markaas sababtay inaan anigu oo dhalinyaro ahaa oo ka wada da'yar intaba inaan u tanaasulo hankayga musharaxnimo si aan Britole timaadada Britole aan wax uga tusaale ugu noqdo. sidoo kale inaan turaale u muujiyo qoys ahaaneed oo aan kuraastii deegaanada ka soo jeeda si aan meesha uga bixin inaan qudheeda aan turaale muujiyo. aniguna aan nin daayar baan ahay halkan meel ka sareysa insha Allah waan ku han weynahay inaan Britole waxba waqtigu hadii Ilaahay nolol inuu gaarsiiyo waqtigu waa bariya saa dambe aan ta dambe ka qayb qaato. marka sababahaas walaal igu kale fiican waa su'aal meesha ku jirta waana haboon tahay runtii bulshada laga jali saaro. anigu marka hore ma iman inaan dheef siyaasiyadeed ka helo, inaan magac ka helo iyo masab iyo maal ka helo midna uma iman degmada. qoys ahaana marka horeba odayima keenin meesha. garashadayda marka hore ku yimid oo aan soo taagay. mana jirto runtii haddaan si kooban kaaga jawaabo aniga cid igu cadaadisay inaan horta tanaasulo marka koobaad. mana jirto cid igu cadaadisay dhaqaale ahaan iyo cudud ahaanba iga muqoonisay igu tiri moogtay ka tanaasul, laakiin waa garasho aniga iga soo go'day. isla markaasna aan u muujiyay anigu way jiraan odayaal badan oo dadka aan isku deegaanka nahay oo dadaalo badan ku jiray sidii dadka loo kala reebi lahaa. haddana runtii anigu shakhsiyan ma yahay culays saaraa, laakiin musharaxiinta kale la tartamaya baa culayska markooda la saaray. kuwaas markii qabsoomi waayeen aan arkay dee doorashadii inay soo socoto dee maxaa la geed maxaa la oran jiray geel weydaartay geed la'aan baa leh ayaa waxaan go'aansaday anigu inaan aanan arrinta ayada ka tanaasulo, saaxiibadii inaan uga tanaasulo, kuwa aan isku qoyska nahay iyo kuwa kale aan tartamaynaba
dhalinyarada ah qudheydaba inaan u tanaasulo anigoo weliba xooga saari doona dhalinyarada badan ee degmada u sharaxan isla markaana ka mid noqon doona shacabka codeeya isbeddelka horseeda insha allahu tacaala waanad mahadsantahay